السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan maanta waxaan idin ku soo gudbinayaa dhacdo cajiib ah oo la xiriidha faraacintii noolaa 3,000 oo sano ka hor. muuqaalkan maanta halkaas sana aad ka aragtaa ma bartan waxaan halkan maanta idin ku soo gudbinayaa bal sida u ekaayeen faraacintii ku noolaa dalka Masar muddo ku siman 3,000 oo sano ka hor. cilmiyahanada saynisku ee ku taxalluqay taariikhaha xilliga fog waxay soo qaadeen mid ka mid ah faraacintii taalay dalka Masar waxaanay ku eegeen qalab raadraac iyo tixraac ku sameynaya hab nololeedkeedii iyo qaabka u ekayd mid ka mid ah faraacintii ku noolaa dalka Masar. waa gabadhaas oo laakiin waqtigan aan la sheegi karin magaceedii rasmiga ahaa balse halkan waxaa bulshada lagula wadaagayaa muuqaalkeedii iyo qaabkii u ekaa wejigeedu. sida bilowgii hore baa ka arkayseen waxaad arkayseen wejigeedii oo qalfoof ah oo aan wax badan ka dareemaynin qaabka u ekayd, balse markii loo isticmaalay habka tiknoolajiyadda casriga ah ee IT-ga la xidhiidha waxaa lagu guuleystay in wejigeedii iyo suuraddeedii dhabta ahayd la soo saaro, taasoo runtii aad iyo aad cilmiyahanada dhinaca taariikhaha fog baadha ay aad iyo aad ula tacajabeen qaabka iyo muuqa ay gabadhaas wejigeedu lahaa, iyadoo gabadh runtii jiinkeedu dalka Masar inuu kasoo jeedo ay runtii suuraddeedu shabahayso isla markaana la jiin ah dadka carabta ah. muuqaalkan kolley sidaad arki kartidba waxaa la soo saaray hadda oo la dhamaystiray wejigeedii iyo qaabka u ekayd, iyadoo halkan aad ka arkaysid wejigeedu marka hore siduu u ekaa, iyadoo markaa muddo imika geerideeda laga joogo 3,000 oo sano ka hor. waa waqti aad iyo aad u fog, balse basharka aadamuhu markuu nool yahayna waa qurux badan yahay, markuu geeriyodana caynka buu eg yahay. subxaan allah, ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu noo dambi dhaafo mar kasta. ummaddanna waa ummad waa hore noolayd, laakiin waxa ayse soo gaadhsiiyey inay saas u arkaan qaab wejigoodu tiknoolajiyadda iyo casriga maanta lagu jiro. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.